ma ogtahayna aragtida koowaad in aan kugu jeclaaday. Ha idihine. Runtii. Laakiin aniga ma rabo inaan wax kaa qariyo. Aniga waxba ma fahmo. Waxaa tahay qof aad u wanaagsan. Ma wanaagsani. Waan xanaaq badanahay. Waana dareen badanahay. Go'aamadana waan ku degdegaa. Isku daygaygana waan ku guuldareystaa. Aniga markaan xanaaqo waan baxaa. Waxaan jeclahay qofka inuu i fahmo anoo waxba u sheegin. Waxaan ka maseeraa waxyaabo basiid ah. Waxaan jeclahay qofka aan jeclahay inuu i siiyo waqtigiisa ugu badan. Waxaan ka aamusaa wax loo baahan yahay inaan ka hadlo. Waan kula qoslaa, laakiin mararka qaar waxaa laga yaabaa inaan xanaaqsanahay. Markaan xanaaqsanahayna waxaad ii arkaysaa inaan ahay qofka adduunka ugu faraxsan. Xiriiro badan ayaan ku soo guuldareystay. Waan soo daalay. Waan soo niyad jabay. Waxaan isku dayay inaan aargoosto, laakiin ma aargoosan. Ma jiro wax aanan samaynin. Aniga waxaan ahay qof dabeecad xun. Dadka kalena la mid ma ihi. Ayaga dhanne sidaasay i dhahaan. Laakiin aniga kugu jecel wax kastoo aad adiga tahay. Bis kaliya noloshaada waxaad ka dhigtaa mid hadda bilaabatay. Way ku faraxday gabadhii ayadoo wax kasta u sheegtay. Waxna aysan ka qarnin ayuu haddana ku qaatay sida ay tahay. Waxa cajiibka ah ayaa ah inuu asaga fahmay waxaasoo dhanna wuxuu ka soo qaaday wax tegay. Waayo ma jirto gabar aan xanaaq badnayn. Dadka qaar ma haystaan qof la taliyo. Dadka qaarna way haystaan, laakiin waxay sameeyaan wixii ayaga ay rabaan oo keliya. Isku noqda hanti, ha isdhaawicina. Ma jirto qof adduunkan dhammaystiran. Idinkaa isdhammaystiri kara oo ku noolaan kara nolol aad u qurux badan oo ay dadka ka maseeraan.